السلام عليكم صاحبيال سيد أركيسان مانتا وحا شبكي ugu dambeeyay lagu shubayaa main gate-ka xaafadda Amal Village ee magaalada Garowe intiina hore u soo booqatay waxa timaadeen halkan oo albaabka laga soo galaahay uu si kala yahay laga yaabay qaarkiina timaadeen intii albaabka sidii hore uu san ahayn oo laga burburiyay hadii intiina aan arkina aan tusno markii hore sidan ayuu ahaa halkan kaga muuqata design-ka cusub oo marka la dhameystirana sidan ayuu noqon doonaa marka waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan maxaa isbedelay qurux ahaan tayo ahaan kii hore muxuu lahayn oo kale leeyahay ujeedada kii hore loo dumiyay oo kan loo dhisay maxay tahay waxaan rabaa su'aalahaas inaan muuqaalkan kaga jawaabno oo aan la fariisano injineerada gacanta ku haya design-ka iyo dhameystirka dhismaha main gate-kan xaafadda Amal Village sida u jeedaan waxa gadaasheena ka muuqata albaabka weyn ee laga galo Amal Village ama irida weyn oo ugu weyn xaafadda sida arrintaanba dhisma ka socda dhismihii baan ka wadnaa albaabkii hore la dumiyay albaabkan wuxuu uga duwan yahay albaabkii hore wuxuu ahaa balliciisu 15 mitir dhererkiisuna wuxuu ahaa 4 mitir iyo bar inta furana baabuurta ka gali karo kan hadda balliciisu waa 20 mitir dhererkiisuna waa 6 mitir iyo bar baabuurta waaweyn oo xamuulka oo rarka wadana tartiib uga gudbi karaa si waafi ay u marayaan meeshii security-ga ay leedahay oo dadkii security-ga loogu talagalay dadka booqashada iyo dadka deegaankaba meelihii baabuurta lagu baarayay marka waa design-kii hore naqshadii hore waa ka weyn yahay waa ka waasicsan yahay waa ka qurux badan yahay wuxuuna waafaqsan yahay naqshada cusub ee xaafadda Amal Village wadna mahadsantiin